Dowladdii Cabbaasiyiintu waxay ahayd khilaafad Islaami ah oo ka dhalatay kadib markii la riday khilaafadii Umayyadeed sanadii 750 miilaadiga, dhanka kale 132 Hijriga. Dowladdii Cabbaasiyiintu waxay xarunteedu ahayd magaalada Baghdad. Magaalada Baghdad waxaa la dhisay sanadii 762. Dowladda Cabbaasiyiintu waxay ka mid ahayd dowladihii ugu waaweynaa ee soo maray dalka Islaamka. Bilowgii Dowladdii Cabbaasiyiintu waxaa aasaasay Abulcabaas as-Safax, wuxuuna noqday khaliifkii ugu horreeyay. Dowladdani waxay ka timid reerka Cabbaas oo ka tirsan ehelka Nebi Muxamed sallallahu calayhi wasallam, gaar ahaan adeerkiis Cabbaas ibn Cabdilmuttalib. Dhaqdhaqaaqii Dowladda Cabbaasiyiintu wuxuu ka bilowday Khuraasaan, halkaas oo ay taageero badan ka heleen Carabta iyo dadka kale ee Muslimiinta ahaa ee cabasho ka qabay cadaalad-darrada ee Umayyadeedka. Dib aynu u yara noqono. Khuraasaan waa gobol taariikhi ah oo haddana muhiim ah oo ku yaalay bariga dunidii Islaamka, inkastoo ay maanta noqotay qayb ka tirsan gudaha dalka Iiraan. Haddaba sidee bay ku bilaabatay Dowladdii Cabbaasiyiinta? Waxaa xukumayay ninkii la oran jiray Abu Muslim al-Khuraasani, oo ahaa halyey militari ah oo aad uga howlgalay bariga Islaamka. Waxaana la riday khaliifkii Umayyadeed ee ugu dambeeyay Marwaan ibn Muxamed, kadibna la dilay. Abulcabaas as-Safax ayaa loo caleemo saaray khaliifkii ugu horreeyay ee Cabbaasiyiinta sanadii 750 miilaadiga. Ujeedooyinkii laga lahaa bilowga Dowladda Cabbaasiyiintu ayaa waxay ahayd in la soo celiyo cadaaladii Islaamka iyo in la siiyo xuquuq dheeraad ah dadka aan Carabta ahayn ee Muslimiinta ah, iyo in la helo khaliiftinimo ka turjumaysa dhaxalkii Nebi Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Kacdoonkii iyo la wareegidii xukunka Dowladda Cabbaasiyiinta sanadii 750 miilaadigu, Cabbaasiyiintu waxay ka adkaadeen Umayyadeedka dagaalkii Zaab, waxayna dileen khaliifkii ugu dambeeyay ee Umayyadeedka ee lagu magacaabi jiray Marwaan. Cabbaasiyiintu waxay xukumeen muddo ku dhow 500 oo sano, waxayna lahaayeen door weyn oo ka muuqda horumarkii cilmiga iyo dhaqanka Islaamka, waxaana lagu xusuustaa dhisidda Baghdad iyo kor u qaadidda aqoonta.